hadiyadan yartaa ayaan habeen dhoweyd helay anigoo iska fadhiya coffee shop aan ugu jeclahay magaalada Muqdisho ee Salool Cafe. dabcan haddii aad reer Muqdisho tahay kafeegaas waa taqaanaa waan huba. coffee shopka aniga u fadhiyo oo laptopkayga iska isticmaalaya ayaa team Salool qof ka mid ah yimid kadibna hadiyadan yartaa ayuu igu doosiyey. qalabkan yarka waxaa loo yaqaanaa webcam cover privacy protection. webcam coverku waa mid ka mid ah qalabyada ugu muhiimsan inkastoo cabirkiisa ama saaskiisa uu yar yahay laakiin waa mid ka mid ah qalabyada ugu muhiimsan ee laptopkaaga uu u baahan yahay. dabcan telefoonkaaga waad ku isticmaali kartaa laakiin laptopkaaga ayuu ku sii habboon yahay. qalabkan waxaa loogu talagalay in aad ku dhegsato meesha kaamirada hore ee laptopkaaga kadibna aad ka shaki baxdo in kaamirada hore ee laptopkaaga lagula isticmaalayo ama ay jiraan barnaamijyo access garayn kara ee kaamiradaada hore ee telefoonka ama computerka. keliya waxaad dabool ka qaadaysaa kaamiradaada markaad adiga u baahan tahay, inta kalena waa ay ku daboolnaanaysaa. waan ka helay dabcan fikradda team Salool ay ku keeneen in macaamiishooda ay hadiyad ahaan u siiyaan qalabkan. ugu dambeyntii qalabkan sideed u aragtaa? dabcan aniga wax weyn ayuu ii yahay, waa qalab yar laakiin muhiimad weyn ii xambaarsan aniga ahaan maadaama privacy protection fiican uu isiinayo marka aan laptopkayga isticmaalayo oo aan ka shaki baxayo dabcan in aan marna kaamiradeyda leela isticmaalaynin. dabcan adiga sidaad u aragtidna nagula wadaag qaybta hoose ee faallooyinka. haddii aadan jacayl u reebin muuqaalkan, jacayl u reeb weliba hadda. haddii sidoo kale aadan nagu soo biirin, nagu soo biir. waa intaasoo wax badan aad ka faa'iidaa muuqaalada soo socda alla idankii iyo kuwii horeba. inta laga gaaray muuqaalka xaba idankii nabadgelyo.